waaxda gaadiidka dowladda hoose xamar ayaa caawa howlgal ay ka sameeyeen wadada isku xirta isgooska Bakaaraha iyo isgooska Balaagsi ee loo yaqaan wadada Kacaan isla markaana dhaxmarta degmooyinka Hodan iyo Howlwadaaga waxaa lagu burburiyay goobo badan oo ay dowladda hoose xamar sheegtay inay yihiin sharci darro kuwaasi oo lidi ku ahaa nadaafadda bilicda iyo amniga guud ee suuqa weyn ee Bakaaraha. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamul gobolka Banaadir Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax ayaa soo kormeeray howlgalkan oo ay waaxda gaadiidka dowladda hoose xamar fulisay isagoo kormeer socda ku maray qaybihii howlgalkaasi laga fuliyay. sidoo kale waxa uu howlgalkan ka wareystay maamulada degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag oo qayb ka fulinayay howlgalkan burburinta ah. marka uu howlgalkan soo gabagaboobay ayaa waxa warbaahinta qaranka u sharxay gudoomiyaha degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir Cabdikariin Cali Kaare. marka wadadu way xirnayd waxay dhibaatooyin badan way ku haysay deegaanka oo ay amaan darradu ka mid tahay nadaafad darradu ka mid tahay wada xumidu ka mid tahay waxaan rabnaa in si amaankuna uu hagaago wada la marana loo helo wadadan lafteedana dhismaheedii oo aan hawshooda iyo abaabulkeeda ku jirno ay u hirgasho in la nadiifiyo dadweynaha ku ganacsada maamul ahaan degmada Howlwadaag iyo Hodan anigoo magacoodaba ku wada hadlaya waxaan u sheegaynaa in ay mamnuuc tahay inay wax dambe soo dhex dhigaan qofkii aan ugu nimaadno dignintooda way qabaan wii ka hor baan u soo dignay marnaba duulaan kuma nihin mana hor istaagayno ganacsatada yaryar inay noolaadaan laakiin waxaan rabnaa inaanu ka shaqeyno kuwa guryaha lehina inay guryahooda bilicdooda iyo qiimahooda kor u kaco kuwa yaryarna si nadaafad iyo nabadgelyo leh ay u shaqeystaan marka labadaba waan isku heli karnaa in ganacsatada yaryarayna aanu daryeelno kuwii waaweynaana aanu u danayno. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamul gobolka Banaadir Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax waxa uu sheegay in maamul gobolka Banaadir uusan u dulqaadan doonin wax walba oo lidi ku ah amniga iyo nadaafadda magaalada Muqdisho. meeshan xataa caafimaadka uma fiicno marka aragto sida ay tahay wadadan anigu isku oranayno wada noocan ku taal magaalada Muqdisho ma aragtay caafimaad ahaan qofkii meeshan bil ku ganacsanay caafimaadkiisu xataa khatar ku jira qofka deegaan ahaan u deganna maba ku sii jirto waxaa jira dad degan oo guriyo meeshan ku leh oo shacaba dadkaas xataa hadii ay qof ka dhinto ama dab ka kaco meel loo soo gali kara ma jirto marka waa xaafad dhan oo block gareysan oo xiran waxaan rabnaa marka oo habeenadii la soo dhaafanaa magaalada ka wadna inaan dib u furno wadooyinka dadka sida sharci darrada ah ugu ganacsanaya daafaha ama xiisaha laamigana inaan ka qaadno sida gudoomiyuhu sheegayna waa loo digay dhowr asbuuc ka hor loo digay digniinna way haystaan dabcan waxaan qiyaasaa caado waxa jirta loo bartay oo ah caawa markii inta wax la sameeyo ayagu inay sidaahdaan inaan dib lagu soo noqon doonin gudoomiyahana waxaan ka rabnaa iyo annagaba si joogto ah inaan ku soo laaban doono ciddii si sharci darro ah dib u dhista wixii aan duminana inaan la xisaabtami doono dadka gaargacanada isticmaala waa ku ganacsan karaan oo maalintii kulli soo dhigan doonaan sida caadada ah laakiin jidka laamigan dhaxbartankiisa qofkii dukaanka dhex dhistay kulli waxaan isleeyahay inuusan filaynin dowladda imaan doonto iyo maamul imaan doono maaragtay meesha wax ka qaban doono. maalmihii ugu dambeeyay ayaa dowladda hoose xamar waxay howlgalo sidan oo kale ka fuliyeen qaybo badan oo ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho kaas oo ay ku bartilmaamisanayeen dhismooyin sharci darro ah oo ay dowladda hoose sheegtay inay lidi ku yihiin nadaafadda iyo bilicda caasimadda. Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.